waxa weeye inaan kontrolno badeenna inaan kontrolno hawadeenna iyo inaan kontrolno xuduudaheena waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaan qaran taasna oo waxyaabaha ugu horeeya oo aan ka Soomaaliya waa qaran xor ah lana siman qaramada kale ee caalamka. Dawladda Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah ilaalinta xuduudaha dalka sida bariga, badda iyo hawada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii la doortay ballan qaaday in dawladda uu hogaamiyo ay ka shaqayn doonto ilaalinta xuduudaha dalka iyo soo celinta sharaftii dalkeena uu ku lahaa wadamada caalamka. Waxaan ugu xigi doonaa insha Allah oo aan gacan ugu jirin oo xaqiiqo ah inaan soo ceshino controlka badeena. muddo kooban dhexdeeda aan soo ceshino oo aysan jiri doonin cid ku soo xad gudubta oo maxaan ku raada kheyraadkeena maalin iyo habeen gurata inaysan jiri doonin cid istiraada meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda waxaan rajaynaynaa hadduu eebba yiraahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteena ku soo celino oo ninkii ku xadgudba badeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha Allah hadduu la yiraahdo waxa iyada naftigeeda aan ku howlanahay inaan iyada naftigeeda aan soo celino controlka iyo ilaalinta xuduudaheena bacdama aan nahay dawlad qaran ah dad qaran ah waxa weeye inaan kontrolno badeena inaan kontrolno hawadeenna iyo inaan kontrolno xuduudaheena waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaan qaran taasna waa waxyaabaha ugu horeeya oo aan ka shaqeynayno oo ah inaan soo celino amniga oo aan amniga ka shaqeyno. ballanqaadkii madaxweynaha waxa ka muuqda natiijo wanaagsan oo sheegaysa in wax badan la qabtay. haddii aynu ka bilowno dhinaca xuduudka hawada, dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in 30 sano kadib maamulka hawada ay la soo wareegto iyadoo iminka ay bilaabatay isla xisaabtan u dhaxeeya dawladda iyo hay'adda ECAO. isla xisaabtanka ayaa ku saabsan muddadii ay ECAO ka maamuleysay hawada dalkeena magaalada Nairobi ee dalka Kenya. xuduudaha bariga, dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa muddooyinkan waday la tashiyo iyo diyaar garow ku aadan sidii loo sugi lahaa xuduudaha bariga. iskaashi laga dhex abuuro hay'adaha ka howlgala xuduudaha sida socdaalka amniga, hawada, maareeyaasha garoomada iyo sidoo kale kastamyada iyo hay'adaha kale ee xuduudaha ka howlgala. waxaana muhiimadu ay tahay in iskaashi dhab laga yeesho oo lagu maareeyo arrimaha la xiriira dambiyada isaga gudba xuduudaha oo run ahaantii dhib badan ku haya dadka Soomaaliyeed dhib badan ku haya. sida ogsoontihiin oo horena aan uga hadalnay wax dambiyada badan inta badan halkan ka dhacay waxa badankooda laga soo gudbiyay xuduudaha dalka ayaa laga soo gudbiyay. marka arrimahaas in iskaashi laga sameeyo ayaa shirkan ku saabsan yahay oo habraacna laga soo saaro oo kulankaasi uu ka soo saaro habraac ku aadan wada shaqaynta hay'adahaas ay wada yeelan doonaan mustaqbalka haddii la yiraahdo. dhinaca xuduudaha badda, sanadihii dambe waxaa soo jiitamayay damac waali ah oo ay dawladda Kenya ku sheeganayso qaybo ka mid ah badda dalkeena. damaca Kenya ayaa sii xogeystay sanadkii 2009 markaas oo dawladdii Soomaaliya ee xilligaasi jirtay ay la saxiixdeen heshiis lagu sheegay isfaham. damaca Kenya ee ku aadan badda Soomaaliya ayaa gaaray maxkamadda caalamiga ah oo qaadi doonta dacwadda labada dal u dhaxaysa. laakiin maxkamadda go'aanka ka hor, Kenya ayaa qaaday isku dayo ay ku doonayso inay cadaadis ku saarto dawladda Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo iyo dawladda hogaamiyo oo taageero ka helaya shacabka Soomaaliyeed waxay u babac dhigeen duulaan kasta oo uga yimid dhinaca Kenya. asbuucii la soo dhaafay wuxuu ahaa asbuuc taariikhi u ah shacabka Soomaaliyeed, halka uu asbuuc madow u ahaa Kenya iyo cid kasta oo ku taageersan damaceeda waalida ah. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay fadhiga 74aad ee qaramada midoobay ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad soo jiidatay muwaadiniinta Soomaaliyeed. madaxweyne Farmaajo oo hore u ballan qaaday sugitaanka xuduudaha dalka ayaa si cad adduunka ugu sheegay in Soomaaliya aysan gorgortan iyo wadahadal ka galaynin taako ka mid ah badeeda. We are very pleased that the court found that it had jurisdiction to resolve the dispute and that it scheduled final hearing on the merit of the case
for the first week of November this year. Somalia, as a member of the United Nations and a party to the statute of the court, is committed to seeing this judicial settlement process through to its end. Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is madaxweyne farmaajo ayaa diidmo toosa ka muujiyay damaca Kenya ay ku doonayso in wadahadal lagu xalliyo kiiska badda. Madaxweynaha waxa uu si bareer ah u sheegay inay ku qanacsan yihiin go'aanka maxkamadda caalamiga ah kaas oo ah xalka labada dal. iyada oo awalba guul weyn ay ka gaartay siyaasadda arrimaha dibadda dawladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo ayaa haddana khudbaddii madaxweynaha ee uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa ay noqotay mid sii laba jibaartay taageerada ay shacabku u hayaan dawladda Soomaaliya. dhinaca kale khudbadda madaxweyne farmaajo ayaa dharbaaxo culus ku ahayd kuwa Soomaali sheegta oo haddana Kenya gacan ku siinaya damaceeda waalida ah iyaga oo markasta oo laga hadlayo kiiska badda soo abaabula warar been ah. murugiyo anad mudane